taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland Sariye Guuta Cabdullaahi Fadal Iimaan oo wehelinayay taliya ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland Sariye Guuta Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle ayaa waxay ka warbixiyeen qaar kamid ah ardaydii loogu dhawaaqay imtixaanaadka shahaadiga oo rabshada ka sameeyay meelo kamid ah magaalada Hargeysa. Ciidamada booliska Soomaaliland ayaa waxay kala dareeriyeen qaar kamid ah ardaydaasi oo meelo kamid ah magaalada Hargeysa gaar ahaan wasaaradda waxbarashada horteeda rabshada ka sameeyay. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland Sariye Guuta Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa waxa uu sheegay rabshadahaasi ay aad u koobnaa isla markaasina ay xadideen oo ay kala didiyeen ardaydaasi. ciidamada booliska Soomaaliland Sariye Guuta Cabdullaahi Fadal Iimaan waxa ugu baaqay ardayda imtixaanaadka shahaadiga lagu dhawaaqay kuwa dhacay iyo kuwa soo baxay inay nabadgelyada ilaaliyaan. waxaana uu yiri wax dhibaato weyn ma dhicin sida ka warqabteen waxa la yeedhinay maanta wasaaraddu yeedhinaysa imtixaanaadkii xogta sidan imika ku helay markii ciidanka booliska goobta yimid dhalinyaro imtixaankii mala dhacday ayaa wasaaradda wadadana waxooga dhagax yar dhigtay wax problem weyn ma jiro shiidna samaysay kulli dhowr waa la hayaa waana la baarayaa arinta wax kale oo dhibaato ma jiraan indhihiina ku aragtaan imanka xaaladdu waa caadi wax dhibaato iyo ma jiraan wax kale oo dhibaato waxa lagu tartamo wax kasta waa noqdo waa la kala badiyaa waana la dhacayaa waana la baasayaa ardayda imika baastay iyo ardayda dhacday marka la soo eego cirkii dhulka isu jiraan boqolkiiba 10 weeyaan ardaydan dhacday oo wax aad u yar weey 30,000 baa galay waxa dhacayna waa 3,000 oo arday marka jamhuuriyadda oo dhan la eego ma Hargeysa kaliya taa marka Hargeysa ilaa 1,500 oo arday baa dhacay ardayda ugu badanna 560 waxay ka baxday Hargeysa ama dugsi hoose ama dhaxal noqotay waliba waxay wasaaraddu ugu bushaareynaysaa in 4 bilood oo waxbarasho la siinayo ardayda dhacday oo re-exam laga qaadayo bisha January baa laga qaadayaa bisha soo socotaana bilaabmayaan duruustu iskuulada waxaan ka soo sheegaynaa iska diiwaan gelinayaan xagga dambe iskuuladaas ay tagayaan ardayda dhacday 4 biloodna waxa bartaan habbaas markaa ninkii awood sheeganaya ardayda laakiin intay imtixaanka uga baxday hebel baa laga saaray ama moobil laga qaaday ee baasi lahaa kaasi isaga asriyeedda wasaaraddu ma ridin